waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee London ka soo degay qaar ka mid ah hal abuurada fanaaniinta iyo qorayaasha ka qayb galaya barnaamijka toddobaadka Soomaalida oo sanad kasta dhamaadka bishan October lagu qabto magaalada London bilaabmayana maalinta Jimcaha ee fooda inagu soo haysa. barnaamijkan ayaa waxa ku suntan oo culayskiisa mid la mid ah leh Marwo Ayaan Cashuur oo haddana ku guuleysatay bilada la yiraahdo MBE ee ay bixiso boqorada wadankan Ingiriisku iyadoo ku mutaysatay isu soo dhaweynta labada dhaqan ee Soomaaliga iyo Ingiriisida. hal abuurada iyo qoraalada haddaba soo gaadhay London waxaa ka mid ahaa Cabdi Duux, Daawud Cali Masxaf, Canab Guuleed, Ibrahim Deyrwa, Sahra Ilays iyo Maxamed Bike. haddaba aan idin kala baxo fanaaniinta iyo hal abuurada oo ka mahad celinaya sida loogu soo dhaweeyay London. kan hadda naga soo horjeeda oo ubaxa la soo kalahay ayaan abaalkoodaba la gudi karin marka waxaan leenahay noolaada annaguna waxaan idin sidna waa arki doontaan insha Allah. yow anigu waxaan aad ku kalsoon wadankii uu ka yimid ku kalsoon idinkana aad ku kalsoon waxaan leeyahay waan soo dhaweysay waan noo soo kalahdeen aad iyo laxaad baan ku mahadnaqaynaa annaguna waxaan idin sidna hambalyo oo horta waan idin salaamay shacbigeeni dadkeeni halkaan noo joogay ee muddo badan aan kala maqnayn ee saaka ilaahayna kulansiiyey aad baan horta ugu faraxsanahay oo waxaad nagu salaanteen hablaha iyo wiilashaba kulli waa idin salaamayaa taageerayaashaydii baatiin anna waa idin jecelahay waan jecelnahay insha Allah kabankii iyo masraxii un baan isku arki doonaa boqol jeer in ka badan waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta quruxda badan ee na soo dhaweysay salaadii noo samirtay ee faraawlka noo keentay sidaad noo jeceshiin baan anana idin jecelnahay waa halkaa daawude way noo mashraxay aad baa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa ilaaha weyn waxa marka xigana waxaan idin mahadnaqayaa dhammaantiin idinkoo isku duuban aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan idin leeyahay qabsada halkaa ka qabsada Allah aniga ubaxdu igu badan yahay aad iyo aad baan horta ugu faraxsanahay inaan London imaado asxaabtayda aan jecelahay iyo dadkay jecelba inaan la joogo waa halka ay sheegeen horta waa noo masraxa aad iyo aad dadkan xalay oo dhan noo soo jeeday ubaxyada naga hor yimiday aad iyo aad bay u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol cali adiguna wad maadsanta. haddana waxaynu milicsan doonaa dadkii soo jarmaaday ee qabowga London shaqooyinkoodii soo baylihiyay si ay u soo dhaweeyaan kooxdan oo aan iyagana qaar ka mid ah soo qaadanayno hadalladoodii. cali Ibrahim Cabdi cali Qaraami waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa runtii bahda fanka oo dhan ama heesa ama hadii beedkeeda leeyahay jilaa ama abwaan dhammaantood waanu soo dhaweynaynaa gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa welcome baanu leenahay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaanu fanaaniintayadii iyo fankayagii soo dhaweyno bahda fanka oo dhan waanu soo dhaweynaynaa meel kasta adduunka yimaadaanba wallahi lama qiyaasi karo farxadan faraxsanahay oo yimaada BK Sarlays iyo Daawud Cali Masxaf iyo inta kala socotaba BK ah mid kamid ah kooxdeeda xidiga geeska waxaan leeyahay welcome ku soo dhawo London ma sha Allah. aadna waan ugu faraxsanahay maanta inuu London nala joogo oo hijra abroad aan kula suganahay iyo yanin ilaawina Sahra Ahmed Abdullahi Sahra Ilays waxa weeyaan boqorad weeyaan waa boqoradii codka Sahra aad baan u jecelahay iyada laftigeeda waxaan leeyahay ku soo dhawo London ta farxad bay tahay maanta. aniga magacayga wax leeyahay Subeer Maxamed Cabdillaahi fanaaniinta timi ee Soomaali way ku timi si weyn baan hortay dhammaan soo wada dhaweynaynaa iyagoo jamaca abwaanada jilayaasha dhammaantood waan soo dhaweynaynaa saaka waa u soo kalahnay in badan baanu sugaynay samir badan baanu sameynay waxaasina waa jacayl. assalaamu calaykum dhammaantiin waan wada salaamayaa waxaan halkan maanta isugu nimid inaan ku soo dhaweyno fanaaniinta jilayaasha iyo maxay dhammaan intii nooga timid wadankii Soomaaliland iyo Djibouti iyo Soomaaliyaba waxaan leenahay welcome ku soo dhawaada maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay fanaaniinteenu soo dhaweynayno lixda fanaan abwaaniinta iyo abwaaniinta isku jirtaba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay welcome to London. assalaamu calaykum magacayga waa Xanaan Cali Nuur waxaan aad ugu faraxsanahay fanaaniinta nooga timid Somaliland iyo Soomaaliyaba aad baan ugu faraxsanahay dareenkayguna aad buu kacsan yahay anigoo ku hadlaya magaca West London Somaliland Community. maanta anaga haddaan nahay reer London aad iyo aad waxay noogu tahay maalin aad u qaaliya maadaama uu BK noo yimi oo ka tirsan xidigaha geeska dhammaan fanaaniinta ka yimi Somaliland aan Soomaaliya aad iyo aad baan leenahay welcome to London. Ali Ahmed Rabi Ali Sayo Home Cable TV Heathrow London.